madaxweynaha dawladda Puntland madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka wasiiro xildhibaano iyo maamulka gobolka bari kan degmada Boosaaso bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa ka qayb galay soo dhaweyn ballaaran oo loo sameeyay madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo galabta soo gaaray magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga dawladda Puntland markii ay soo cagarigatay diyaaradii siday madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud garoonka diyaaradaha ee Bandar Qaasim Boosaaso ayaa waxa uu salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada Bamboyda oo goobta ku sugnaa inta ka bacdi madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa salaan la dhex qaaday mas'uuliyiintii kala duwanaa ee ku soo dhaweysay garoonka diyaaradaha Boosaaso madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo qolka marti sharafta kula hadlayay saxaafadda ayaa sheegay in ay farxad weyn u tahay in ay soo dhaweeyaan madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud sharaf weyn bay noo tahay maanta inaan hadda kolkan ku soo dhaweyno madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliyeed Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi fawz oo hogaaminayo oo nooga yimid magaalada Muqdisho madaxweynaha waa soo dhaweynaynaa aad baan u faraxsanahay dadka reer Puntland iyo shacabka reer Boosaaso intaba madaxweynaha ku dhaweeyaan dadka shacabkaaga waa u timid inaad soo booqato u timaado aad bay u faraxsan yihiin runtii maana sharaf weyn bay noo tahay ka dowlad ahaanba madaxweynuhu booqashadii loogu yimid dabcan munaasabadda oo muhiimka waxa weeye waa furitaanka airportka Boosaaso ee Brito laakiin dabcan madaxweynuhu yimaado waxa badan oo kale oo la xiriira nabadda iyo geeddi-socodka nabadda Soomaaliyeed iyo horumarka iyo mustaqbalka Soomaaliya in laga wada hadlo oo madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mahad ballaaran u jeediyay mas'uuliyiintii kala duwanaa ay ku soo dhaweysay galabta garoonka diyaaradaha Boosaaso aad iyo aad ayaan maanta maalin weyn oo taariikhi ah ay guud ahaan Soomaaliya ugu tahay gaar ahaan anigoo ah madaxweynaha jamhuuriyadda iyo shacabka reer Puntland si gaar ah waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu mahad celiyo madaxweyne Cabdiweli iyo shacabka reer Boosaaso iyo guud ahaan shacabka Puntland soo dhaweyntii ballaarneed ee galabtan loogu sameeyay muxuu ahay halkan magaalada Boosaaso warka fursad aad iyo aad u weyn si weyn oo sharaf badan Soomaalinimo iyo qadarin badan ay ku jirto ayaana loo soo dhaweeyay waana ku faraxsanahay waana ka mahad celinaynaa sida madaxweynuhu u sheegay mar haddii madaxdu isku timaado kadibna muxuu ahay in la iswarsado oo danaha Soomaaliyeed guud ahaan la iska warsado iyo dabcan gaar ahaan horumarka ballaaran ee ka socda Puntland in warbixinteeda nala siiyo annaguna aan muxuu ahay taladeena iyo ra'yigeena aan ku beerino sidii horumarkaasi u sii ballaaran lahaa oo maxaan ku yiraahdaa guud ahaan Puntland dhinaca horumarka maadaama stagekii ama heerkii horumarka hadda ay ku jirto in maxaan ku yiraahdaa dawladda federaalka doorkeeda wixii ay ka qaadan karto ay ka qaadato hadii aad yiraahdo taas waa midaas waxa kaloo inta dheer munaasabada weyn ee airportka cusub ee aad iyo aad muxuu u quruxda badan casriga ah ee ka hirgalay magaalada Boosaaso waa horumar iyo guul u soo hoyatay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo gaar ahaan dadka reer Puntland waa mashruuc aad iyo aad qiimo u leh oo muddo dheer soo socotana muxuu ay macna badan ku soo kordhin doono horumarka Puntland hadii aan la yiraahdo khaasatan magaaladan magaalo ganacsi ah xeebta ah maxaan ku raadayay aad caamka oo ah dhinaca ganacsiga hadii tahay dhoofinta waxyaabaha Soomaaliya laga dhoofiyo xooluhu ugu horeeyaan iyo waxyaabaha kale iyo hadii tahay soo dejinta badeecado badan oo dalka Soomaaliya qaybihiisa kala duwan iyo dariska intaba gaara marka taas un bay sii xoojinaysaa infrastructure ka jiray magaaladan waa horumar sidoo kale aan u nimiday ayaduna inaan la wadaagno farxadda dadka reer Puntland iyo dawladda Puntland intaba waxa xusuud mudnayd in iyaguna ay maanta soo gaareen Boosaaso safiirada dalka China iyo dalka Talyaaniga kuwaas oo ka qayb galaya munaasabadaha ballaaran ee maalinta Brita ka dhici doona magaalada Boosaaso waa markii ugu horeysay tan iyo markii xilka loo doortay madaxweynaha dawladda Soomaaliya uu soo gaaro magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga dawladda Puntland waxaana uu ka mid yahay wafuud dhowr ah oo ku sugan Boosaaso Cabdiqani Axmed Maxamed Cabdiqani Boos telefishinka caalamiga ee Somali Cable Boosaaso
ay ku soo dhaweysay garoonka diyaaradaha Boosaaso. madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo qolka marti sharafta kula hadlayay saxaafadda ayaa sheegay in ay farxad weyn u tahay in ay soo dhaweeyaan madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. sharaf weyn bay noo tahay maanta inaan hadda kolkan ku soo dhaweyno madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliyeed madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi Fawz oo hogaaminayo oo nooga yimid magaalada Muqdisho. madaxweynaha waa soo dhaweynaynaa aad baan u faraxsanahay reer Puntland iyo shacabka reer madaxweynaha dawladda Puntland madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka wasiiro xildhibaano iyo maamulka gobolka Bari kan degmada Boosaaso bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa ka qayb galay soo dhaweyn ballaaran oo loo sameeyay madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo galabta soo gaaray magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga dawladda Puntland markii ay soo cagarigatay diyaaradii siday madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud garoonka diyaaradaha ee Bandar Qaasim Boosaaso ayaa waxa uu salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada Bamboyda oo goobta ku sugnaa. inta ka bacdi madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa salaan la dhexqaaday mas'uuliyiintii kala duwanaa dadka shacabkaaga oo u timid inaad soo booqato u timaado aad bay u faraxsan yihiin runtii maana sharaf weyn bay noo tahay xukuumadda dawladda ahaanba madaxweynuhu booqashadii loogu yimid dabcan munaasabadda oo muhiimka waxa weeye waa furitaanka airportka Boosaaso ee Barito laakiin dabcan madaxweynuhu u yimaado waxa badan oo kale oo la xiriira nabadda iyo geeddi-socodka nabadda Soomaaliyeed iyo horumarka iyo mustaqbalka Soomaaliya in laga wada hadlo oo madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mahad ballaaran u jeediyay mas'uuliyiintii kala duwanaa ay ku soo dhaweysay galabta garoonka wadanaha Soomaaliyeed guud ahaan la iska warsado iyo dabcan gaar ahaan horumarka ballaaran ee ka socda Puntland in warbixinteeda nala siiyo annaguna aan muxuu ahay taladeena iyo ra'yigeena aan ku beerino sidii horumarkaasi u sii ballaaran lahaa oo maxaan ku yiraahdaa guud ahaan Puntland ee dhinaca horumarka maadaama stage-kii ama heerkii horumarka hadda ay ku jirto in maxaan ku yiraahdaa dawladda federaalka doorkeeda wixii ay ka qaadan karto ay ka qaadato hadii aad yiraahdo taas waa midaas waxa kaloo inta dheer munaasabada weyn ee airportka cusub ee aad iyo aad muxuu ahay u quruxda badan casriga ah ee ka hirgalay magaalada Boosaaso waa Boosaaso aad iyo aad ayaan maanta maalin weyn oo taariikhi ah ay guud ahaan Soomaaliya ugu tahay gaar ahaan anigoo ah madaxweynaha jamhuuriyadda iyo shacabka reer Puntland si gaar ah waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu mahadceliyo madaxweyne Cabdiweli iyo shacabka reer Boosaaso iyo guud ahaan shacabka Puntland soo dhaweyntii ballaarneed ee galabtan loogu sameeyay muxuu ahay halkan magaalada Boosaaso warka fursad aad iyo aad u weyn si weyn oo sharaf badan Soomaalinimo iyo qadarin badan ay ku jirto ayaa noo soo dhaweeyay waana ku faraxsanahay waana ka mahadcelinaynaa sida madaxweynuhu u sheegay mar haddii madaxdu isku timaado kadibna muxuu ahay in la iswarsado